oo ay garab istaagto oo ay maxaan ku raadayay ay ku taageerto nabadgelyada iyo sharafta ay doonayaan in ay maxaan ku raadayay maamuladooda ku dhistaan waa inay taageero buuxda siiso waa inay shacabkeeda abuurato waa inay shacabkeeda soo dhawaysato waa inay nabadgelyada ka shaqayso oo kala shaqayso wax la wixii nabadgelyada jecel dawladda Soomaaliya intaas aan u dirayaa haddii aan dumarka nahay waxa weeyaan anagu waxna waan dhisnaa waxna waa duminaa waxay taasi ka dhigan tahay waxa weeyaan waxa wax duminaya ee dhulka baabiyay waa rag Soomaaliyeed hooyo dhashay hooyo oo caruur u dhashay marka waxa weeyaan hooyadu haddii ay tahay hooyo nabadda dhexda u xiratay oo maxaan ku raadayay ay diyaar u ah in ay Soomaaliya midnimadeedu ay noqoto mid muqaddisa waxaan ku boorinayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay hawshooda israacsadaan oo ammaantaas la amaanay dhinaca kalena ay ka dhamaystiraan oo ay ka soo horjeestaan wax kasta oo carqalad ku keenaya dawladda Soomaaliya leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed baan u dirayaa waxaan kaloo la hadlayaa dhalinyaradu waxaad moodaa in ay yihiin koolbabis baa laga dhigtay runtii ilaa iyo maxaan ku radaa waqtigii burburku uu jiray dhalinyaradu waxa weeyaan waxa meel walba ku dhimanaya ee ku dayacan waa dhalinyaradii Soomaaliyeed waxa sidaa yeelayna waa aabbayaal Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa dhalinyarada in ay gamaha isqabsadaan inta xabadu la tagayso inta dhaawac aan dib loo fiirinaynin dan yani rag dan gaar kale inay ku adeegtaan ka feejignaadaan intayna halkan timi waxaan ku boorinayaa in aad u shaqaysaan oo aad la shaqaysaan dhalinyarada aad dhulkii uga timaadeen ee dhibaataysan intaasaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maamul goboleedka Jubbaland ee uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ku-xigeenkiisa Generaal Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag dhammaantiin waan ugu hambalyeynaa waana taageeraynaa ma aha mid caabifo ah oo laablakac ah ee waa mid ku salaysan sharciyad iyo qaanuun waxaana jeclahay in aan wax walba waa laga hadlay maasajkan aan u gudbiyo dawladda dhexaad ah oo laga maamulo oo ah magaalada Muqdisho maamulku waxa uu ku salaysan yahay isdhisidda deegaanada haddaba haddii ay timaado in sida sharcigu uu dhigahayo si mabda'a ay isu raacaan gobollo tiradooda ku xalaysan yahay dastuurku ma aha in laga soo horjeedsado 3 gobol ayaa israacday taasi waa midda labaad dawladda federaalkii waxaa dhibaato ah in ay ku mashquulsho gobollo iyo maamullo iyada taageersan oo aan diidanayn Soomaalinimadii oo aan diidanayn dastuurkii dawladdii dhexe inay diido waa nasiib darro runtii wax laga xumaada ah midda labaad adduunku sidii hore ma aha waxaan u gudbinaynaa dawladda Soomaaliya fariin dhibaatada ka socota gobollada Jubbooyinka guud ahaan laga soo bilaabo Doolow ilaa Raaskambooni shacbiga ay dawladda Soomaaliyeed iyadu hubaynayso ee ay ku horkeenayso maamulka ka joojiso haddii uu moodahayo maamulka madaxweyne Xasan nidaamkii hore ee wax la baari jiray wuu dhammaaday qof walba oo mas'uul dhibaatada uu shacbiga u geysto waa lala xisaabtamayaa falalka argagixisnimo ee ka dhacaya Jubbooyinka ma aha in ay dunidu moogtahay iyada oo ay Jubbooyinka ka jiraan maamul iyo ciidan sharci ah inaya dad Soomaali ah oo mas'uuliyiin sheeganaya anigu ma jeclaysanayo inaan magacyadooda xuso laakiin waxaa xaqiiqo ah in qof kasta oo dhibaato ka geysta maamulka uu ku jiro in ayna ahayn waqtiga 70-meeyihii BBC-da la sugi jiray laakiin uu satellite magaalo walba kor taagan yahay waana lagula xisaabtamayaa waxaad xasuusantihiin madaxweynihii Liberia halka uu ku xidhan yahay baad la socotaan
inta sane ee la darsahayay noloshiisa aad ogtihiin waxa aad la socotaan heeg dhibaatadii Kenya dowladdii waagii Kibaki la dooranayay waxa aan marka u sheegaynaa madaxda Soomaaliya in aanay inta laga qarsan karaynin ayna ahayna waa la yidhi iyo xilligaas wuu dhammaaday adduunka wax waliba way cad yihiin qofku marka uu wax ataagahayo waa lala socdaa safiirada iyo hay'adaha muqdisho ka shaqaynaya way la socdaan dhibaatada ay dowladda Soomaaliya ka wada gobolada Jubbooyinka waxaanu soo jeedinaynaa in la joojiyo dhibaatada waxaan runtii had weyn u celinayaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada Jubbooyinka idinku mahadcelinaynaa inta aad ka fogaan kartaan xasaasiyadda iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed sida uga fogaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad bay sharaf iigu tahay in hortiina soo istaago dadkaas qurux badan ee aabe hooyo walaal dhalinyaro leh magacaygu waa Mustafa Xajaan Haarun waxaan ahay wakiilka Cable TV ee Central Europe sidoo kale waxaan ahay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo aanu dalkan Jarmalka ka abuurnay sanadkii hore 2012 bishii afraad Abriil tobankeedii magaalada Schweinfurt ee gobolka Bayer baanu ka ma aha urur ay leeyihiin gobol ama qabiil gooniye waa urur u taagan shanta Soomaaliyeed waxa loo yaqaan ururkaas waxa uu furayay qof kasta oo Soomaaliya oo journalist sidoo kale xubnaha kale member bay ka noqonayaan intii aan ururka u galin aniga hadalkayga soo koobaya waxaan jeclahay inaan u mahadnaqo qabanqaabiyaasha barnaamijka maanta ay ugu dabaaldegayna xafladda Jubaland State oo ka dhalatay koonfurta dalka Soomaaliya ee uu hogaamiyay Sheekh Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madoobe waxaan jeclahay idinkiina fikirkii soo jeediyo ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed waa inuu siyaasiyiin maniga waxaan nahay maracada u dhaxaysa dadka Soomaalida oo dhan ama wax Soomaaliga ku hadla ama ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan u dhaxayna markaana u cidna kuma tiirsanin sida ka war haysaan quruxdiinnan iyo karaamadiinnan iyo dadkiina isugu soo yimi iyo hawshan iyo kharashkan idin galay kuwa gudbinaya idaacadda Soomaali ku dhageysataan waana ballan hadii Allah idin runtii toddoba kaliya nahay oo wariyaal dadaalkaygu ma yara laakiin garbihiin idinka la'aantiin waxaanu qaban karaynaa ayaa iska yar bulshada aanu magacooda isticmaalayno magacooda wax ku raadinayno magacooda aanu doonayno kor u qaadna waa idinka wariyaasha ka hor Jarmalka Soomaalidu waxay ku noolay dhowr iyo 40 sannadood ama 50 sannadood intii aanu anagu joognay u baaduunka la idinka arkay fanayga ma aha waa wax qabadkayga waxaa loo soo gaabiyey Somali Exile Journalist Organization in Germany dowladda Jarmalka officially wayna aqoonsatay waxaan u baahanahay aqoonsigiina xarunteedu waxay ku taallaa magaalada Gießen ee gobolka Hessen annaga ilka fangarayna xafiiskayga muddo 3 bilood annaga la yiri Soomaalidu waxay samaysato markiiba way burburtaa qabiyaalad iyo gobol iyo waxba kala baabiya insha Allah waxaan u baahanahay ducadiina inaana noqonin kuwa burbureen noqono kuwa hiigsada meesha ay doonayaan anigoo ku hadlaya dhammaan afka suxufiyiinta Soomaalida ee Jarmalka marka uu dhinto aan ciyaalkiisii cid caan u soo gadaan lahayn waxa loo baahan yahay idinku inaad ka damqataan oo aad murugotaan oo muujisaan dariiqeena kaas anagana dhiirigelintayadu oo ku sii shaqaynaya haddaan soo noqdo gabagabada waxaan jeclahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan u baahno walaalahayga Janice Garsiye waxaan jeclahay xafladda ururka si joog inaan ku qabano magaalada Frankfurt haddii Allah igu dhawaan waxaan ka soo qayb galaya wariyaasha bilaa xuduudka iyo journalist halka la yiraahdo oo motion ay tahay arrintoodu loo aragno inaan Soomaalida ku soo casuumi karno sharaf bay noo tahay inaan nagala soo qayb gashaan insha Allah waxaad ka arki doontaan on Cable University Somali Channel dhamaanba ogeysiiska waad ka arki doontaan laakiin taageeradeedu waxay noqonaysaa tii aan ku helnay idaacadda Soomaali ku hadasha mustaqbalkana aanu telefishinka Soomaaliyeed dalka Jarmalka idinka helnay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh sharaf tale u taageeray ee ugu tanaasulay qofkii uga guuleystay ee madaxda hadda Jubaland State oo ugu horeeyo Professor Maxamed Cabdi Gaanti Sheekh Maxamed Awlibaax General Ali Madoobe Sheekh Macali Maxamed Cabdi Casiis iyo in kale oo fara badan oo aan hadda magacooda aan hadda ku soo koobi karaynin siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay ku daydaan raggaas sida sharafta ay sameeyeen wixii ay intaasoo sano soo wadeen markii looga guuleystay ay sida sharafta ay u taageereen waxaan halkan
ayadana hambaliyo u dirayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa Jubbooyinka oo oran karayna waxay sameeyeen waxaan adduunka ka dhicin ciidan 2 sano dagaalamaya oo dawladii calankeeda uu sitay aanu ka helin $1 ama hal xabbo oo rasaas oo qori la gelin 2 sanana dagaalamaya oo dhufays ku jira oo gaajo cunayso waxaa kamid ah dhibaatooyinka ugu faraha badan ee nimanka askarta qabsaday habeenada kamid ah taliskaano telefoonka ugu jira ayaa waxa ku yimid roob mahiigaan qofkii yaqaanada indhaha haddii farax laga geliyo waxa ma arkaysa xoog uu leeyahay roob nimankii ka soo horjeeday waxay go'aan ku gaadheen inay hadda ka faa'iideystaan roobkaas dagaal bay ku soo bilaabeen madficii u horreeyay ee lagu soo tuuray teendhadii yaray ee jirsanayeen buu kala tegay maxaa nimankii isugu darsantay colaad iyo roob mahiigaan dhibaatadaas ay u soo mareen dadkan kali wiilashaasi waxay soo socdeen hal sano ayay Dhoobleed iyo Kismaayo u soo socdeen maxaa dhacay hadday dagaal galaan xabadii baa ka dhamaan shidaalkii baa ka dhamaan dhaawac baa iman cid taageeraysa male dawladii Soomaaliyeed indhaha bay ka fiirsanaysaa ma isku dayayso inay tiraahdo dadkan waa ciidankii dawladda Soomaaliyeed wax ku taageer waxaan wadata igad baa kan bixisay igad baa kan kala waxisay ka baas ka waxisay nimankaasi kowdii February shirka Kismaayo intoona dhicin ayay igadoo dhan programkan iyo waxaan oo dhan kala wareegay ilaa maalinka maanta ilaa kowdii February rugta ganacsiga JCC ayaa ku shuqul leh arrimahan maamul u samaynta ee waxaan TV-yada inaad ka aragteen baa laga yaabaa waxaa kaga baxday $4 milyan oo rajaynaya $4 milyan meeshii wiila aad ka bixisay ilaahay khayr idinku bedelo waxaad sadaqaysateen dadkii nagu sadaqaysateen ilaahay waa ajrin ka siinaya lacag la ururiya waxa macna ma keento ninku wuxuu ka dhigtaa oo maaragtay ragii mas'uulaha dahabka samaystay maracad baa ka raacday marka shacabka iyo ganacsatada Jubbaland waxaan kula talin lahaa oo maaragtay ka codsan lahaa inay ku daydaan nimankaas rugta